askar shaqo looga ceyriyay cayil dartiis inay buuran yihiin iyo inay xulus leeyihiin iyo dadka cayilan oo la sheegay in aysan shaqooyinka ku wacnayn sidoo kalena ay u dhigmaan dhowr qof oo caato ah iyadoo sida aan wada ognahay dunida uu dhibaato xoogan ku hayo cayilka buurnida iyo dadka xulusta leh ayaa haddana waxaa wadamada qaar ay diideen in shaqooyinka xirfadda ah aan loo dhiibin dadka buurbuuran weliba kuwa xulusta lehna ay ugu daran yihiin inkastoo wadamo badan horay ay u diideen in shaqooyinka ciidanka ay qabtaan dadka buurbuuran ayaa wadanka Koonfur Afrika waxa ay dhankeeda shaqadii ka cirisay ciidamo badan oo ka tirsan booliiska wadankaasi kuwaasi oo gaarayaan boqolaal askari taasi oo shaqada looga ceyriyay cayil dartiis inay buurbuuran yihiin iyo inay xulus leeyihiin taasi oo lagu sheegay in cunnada oo kaliya ay ku sugtaan goobaha shaqada cunnana ay ku dhex cunaan goobo aan munaasab ahayn iyo in aysan ka soo bixin howlaha loo idmado mararka qaarna aysan ka xishoon in dadka hortooda ay cunno ku cunaan weliba iyagoo shaqo ku jira mararka qaarna ay ku caajisaan in shaqooyinka loo diray ay qabtaan oo kaliyana ay rabaan in meel qabow ay joogaan cunnadana ay ku sugtaan sidoo kale askartan shaqada laga ceyriyay ayaa waxaa horay ugu adkaaday in ay sameeyaan jimicsiga maalinlaha ah ay ciidanku sameeyaan iyo in ay ka qayb qaataan tababarada ciidanka xirfadooda lagu dhisayo waxaana intaasi ka sii daran in kuwa qaar howlgallo iyo dhacdooyinka ay joogeen ay ku fashilmeen in ay wax ka qabtaan taasi oo loo arkay in aysan askartan muhiim u ahayn dhinaca ciidanka oo kaliya ay calooshooda ka taxadaraan kana fikiraan sanado badan ayaa digniin la siinayay in ay isbeddel sameeyaan oo ay xulusta iska jaraan calooshana yareeyaan inkastoo ay dowladdu u dadaashay haddana waxba iskamay beddelin waxayna ugu dambayn askartan oo gaaraysa 470 askari oo isugu jiraan rag iyo dumar laga ceyriyay shaqadii ciidannimo ay ku nasa jireen isla markaana ay cunnada ku suga jireen sida dowladdu ay warka u dhigtay sidoo kale waxaa jiraan dowlado shirkado iyo kambaniyaal badan oo shaqadii ka ceyriyeen dad u shaqaynayay tan iyo markii ay soo baxday daraasad sheegaysa in dadkaasi waxqabadkoodu uu yar yahay dadka cayilan wax badanna aan laga faa'iideynin mararka qaarna ay khasaare keenaan dhowrkii qof ee buuran ayaa la sheegay in ay u dhigmaan qof caato ah sida daraasadaasi lagu xusay sidoo kale habfakarka dadka buurbuuran weliba kuwa xulusta leh ayaa laga deyriyay marka laga tago in dadkan shaqooyinkii looga ceyriyay in aysan waxqabad badnayn haddana dadka laga deyriyay waxa ugu badan in habfikirkooda dadka cayilan uusan u shaqayn sida dadka caatada u shaqeeyo Soomaaliya ma kula tahay in sidan oo kale ay u baahan tahay